waxaan rabaa marka koowaad inaan mahad celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uma waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo shaqaalaha kala duwan xafiiska golaha ra-iisul wasaaraha. runtii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu soo shaqeeyay xilli aad u adag oo dalkeena ay ka jiraan khilaaf siyaasadeed oo dhib badan runtii kaas oo qaatay muddo. wuxuu dhaxlay aragtiyo kala duwan iyo dadkii siyaasada kala fogfog oo runtii markaas halis ku noqon karay deganaanshaha iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho. xilligaas adag runtii dad fara badan oo laga yaabo inaan anu ku jiray waxaan u arkaynay inay aada uga adag tahay prime ministerka in uu handal gareeyo ama uu hago barnaamijkii doorashada ee runtii aadka loogu kala fogaa. waxaan aada uga baqaynay inuu ku barbariiqdo oo asaga oo dhaawacyo badan qaba uu xilligan soo gaaro. waana dhici kartaa in xataa talagalku wax mararka qaarkood siyaabahaas uu ahaa, laakiin tusbaxaa yar ee uu haystay iyo ducooyinku waxay keeneen in uu ilaahay ka samato bixiyo oo asagoo hero uu ka baxo galabta xafiiska. marka waxaan aaminsanahay in uu mukhlis ahaa oo ikhlaas iyo allabari iyo dadaal inuu uga soo gudbay marxaladaas dhibka badan ee qodxaha badnayd ee runtii aan aada uga wada cabsanayna kulligeen. asaga iyo tiimamkii la shaqeeyey iyo odayaashii marka dambe majaraha u qabtay labada aqal runtii iyo saraakiishii amniga iyo dhammaan intii ka shaqeynaysay waanu mahad celinayna. waxaad dalka kasoo gudbiseen marxalad aada u adag oo xusuus runtii ciddii ka naxaysa dalkan xusuus ku reebaysa mararka qaarkood sidii dadkeenu ay u niid jabsanaayeen iyo sidii ay halista u gashay Soomaaliya. waxaa la yidhaahdaa dadka Soomaalidu ma xusuus badna, markuu wuxuu saa u dhammaado dadku waa isku wada midoon. kii dadka eber ka dhigay oo laayay iyo kii dadka badbaadiyey 2 bilood kadib isku mid bay noqonayaan. adduunkana sidaas kama jirto. qofku wuxuu leeyahay sijilli iyo document lagu yaqaano leeyahay qofku iyo record. waxaan rajaynayaa mudan ra-iisul wasaare in markan Soomaalidu xusuusteedu ay yar dheeraan doonto oo loo xusuusnaan doono. waxaan ballan qaadaynaa xukuumaddan intay jirto in aan dadka ku xusuusino marar badan, siyaabo kala duwan inaan dadka kusoo hor istaajino, siyaabo kala duwan iyo munaasabado kala duwanna inaan kaaga xusno. marka aada iyo aad baan kaaga mahad celinayaa. mahaddaas runtii waxaan u celinayaa ra-iisul wasaareyaashii hore ee dalka. haddaan kooyay sheekadu ma aha. waxaan waa cumulative iyo waxyaabo laysoo kor saarsaaray oo ninba maalinba meel kasoo qaadayo, ninba maalin keenayo. kuwaa meeshan soo galay iyada oo aan sidan ahayn iyo si ku dhow oo la wada degan yahay oo burbursan tahay oo aan kuraas oolin oo ayna dawlada ka jirin. waxbay ku bilaabeen, meel bay soo gaarsiiyeen. waanu mahad celinaynaa. kuwaa kasii horreeya oo Talyaani ka bedelayba oo Soomaali ka dhigay waan u mahad celinaynaa. qof kasta oo waddankan soo xukumay, especially prime ministeradii kala duwanaa ee naga horreeyey, kii qaada kusoo daray iyo kii kursi kusoo daray iyo kii xaashi kusoo daray, intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin. intii dhimatay allah u naxariisto, inta noola guul, cibaado iyo caafimaad baan u rajaynaa.
shaqaalaha oo PS ku kow ka yahay oo runtii had iyo habeen mar walba u taagnaa in ay najixiyaan siyaasadda xukuumadda iyagana waan mahad celinayaa. golaha wasiirada oo runtii dadaal badan galay oo qof waliba meesha uu joogay ka soo shaqeeyay waan mahad celinayaa. shacabka Soomaaliyeed oo runtii ku aaminay oo kula shaqeeyayna waan mahad celinayaa. wasiirkii hadlay saaxiibkay ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta uu mahadsan yahay. wax kasta oo fiican oo wanaagsan oo la sameeyay oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu sameeyeen waan uga mahad celinaynaa, waxna waan kusii dhisaynaa, halkaasaan kasii bilaabayna. waxaas fiican ee meeshaas laga sii bilaabayo wasiirku ka mid yahay. hadduu fiican yahay waxaas fiican buu ka mid yahay. haddii uu kursi jaban yahayna kursiga waa la bedelaya. aad iyo aad baan runtii wasiirada ugu mahad celinayaa. intaas waa iska kaftan. shaqaalaha iyo saaxiibadayda aan isku wareegnay ee ana laygu soo wareejiyey ayagana laygu soo wareejiyey waxaan ka rajaynayaa shaqo wanaagsan, saaxiibtinimo, ayagana inay soo dhaweeyaan. anigana waxaan ballan qaadayaa in aan si hufan ula shaqayn doono. way dhici kartaa inaan idin soo kalihiyo, way dhici kartaa habeenkii seexda inaan idin dhaho, way dhici kartaa inaan xafiisyada soo galgalo, laakiin waxaan hubaa inaan idinka xishoon doono, waxaan hubaa inaan idin respect garayn doono, laakiin waxaan hubaa waxa inoo qoran inaan tadbiiqin doono 100%. dad Soomaaliyeed oo sharaf la jooga meeshan oo civil servants ah iyo la taliyayaal iyo dad sharaf loo qiimo leh. waxaad ka cabsantaan ma jiro. mid saaxiibkiin oo halkan ka shaqayn jiraa imaaday oo wada shaqaynayna. waxaan mar walba runtii aan ku dadaali doonaa ilaahay idankiis. waddankan waxa hortaagan waa ognahay, maanta meeshuu marayana waa ognahay. maanta ajandaheenna koowaad waxaa waaye dadkeenna dhimashada baahidu ay keenayso inaan ka badbaadino. si aan uga badbaadinana waa inaan amnigiina aan sugno. marka baahidii oon dadka ka badbaadino, oon abaaraha dadka uga gurmano, iyo abaaro keliya ma ahee berri hadduu daadad yimaadana dee qaylada aan kuma jiri karne inaan xal waara la nimaadno, iyo si dadkeena aan u badbaadino xal waarana aan ula nimaadno. caqabadaha ugu waaweyn waa kuwa amniga inaan zuulino caqabadaha ay hortaagan. saddexdaas arrimood oo isku duuduuban ayaa priority inoo ah. waxa kaloo dhani way soo daba socdaan, ayaga ayayna kaalmaynayaan. waxaan rajaynayaa dalkani inuu aado prioritiskiisa. wax kale lagama shaqayn karo haddii aan nabadgelyo la helin. meeshaas waa meesha bugta Soomaaliya, meesha u baahan xalkuna waa meeshaas. innaga oo heshiisa oo mid ah, innaga oo isku kalsoon, innaga isku tashanayna, waxaa lagama maarmaana inaan u dhaqaaqno sidaan dalkan u xoreyn lahayn. dalkan wuxuu u jahaysan doonaa inuu iska xoreeyo cadowga. waxaan rajaynayaa in loo diyaar garoobo. wasaaradda awqaafta sheekhu hadda wasiirka xil baa saaran. wuxuu xil ka saaran yahay muslimiin baan nahay, ha noo sheegto dagaalkaan meeshaas la gelayno ma sax baa mise waa qaldan, ma baadil baa mise waa xaq. waa inay noo sheegtaa. wasaaradda ganacsiga waxaan ka rabnaa inay businesska abaabusho oo la aado xaggaa loo jeesto. wasaaradaha qorsheynta iyo aan ognahay pillarska ka shaqeynaya, pillarskaas way mahadsan yihiin, waa wadaysiin, laakiin priority-geennana waa inaan ogaanaa. wasaaradda maaliyaddu waa inay sidaas ogaataa. waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay shacabka Soomaaliyeed inay is-xoreyn doonaan. waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay in aan badbaadin doono dadkeenna, kadibna aan gaari doono xorriyad taam ah oo aan dalkeenna ku horumarino, oo aan waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhaqaalihii oon kor u qaadna aan ku keeni doono haddii Ilaahay yiraahdo. isku kalsooni baa loo baahan yahay, niyadda oo la dhisaa loo baahan yahay, Soomaalinimaa loo baahan yahay.
waxaa loo baahan yahay in wixii hore oo dhan la iska halmaado waxaa hore oo dhan wuu iska dhammaaday marka bog cusub iyo beejis cusub iyo qalbi cusub oo nadiif ah iyo saaxiibtinimo iyo soomaalinimo iyo isjacayl kusoo dhawaada dhammaantiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaanan mar labaad runtii u mahad celinayaa dadka kasoo qaban qaabiyey iyo inta soo xaadirtay oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyeyaasha labada aqal waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.